Salaamun calaykum maalin wanaagsan. Website-kan iyo qofkaani uu ku magac daray This person does not exist oo laga wado qofkaani maaha mid jiro ayuu ku soo bandhigay kumanaan wajiyo dad ah uu ku sheegay inaysan ahayn wajiyo dhab ah ay yihiin kaliya wajiyo la farsameeyay oo loo adeegsaday barnaamijyo. Sawiradan kumanaanka kun oo beenta ah oo bugta ah waxba ka jirin ayaa waxa loo adeegsadaa waxyaalo kala duwan ay ugu badan tahay inay adeegsadaan cayayaanka baraha bulsho. Baraha bulsho waxaad ka dhex arkaysaa malaayiin koonto ama bogog kuwaasoo la saartay sawiro bug ah ama qaarkoodba la adeegsado sawiro dhab ah balse dadka adeegsanaya ay yihiin dad aan shaqo ku lahayn sawirka. Waxaa laga yaabaa tobanaan ka mid ah koontooyinkaas ama bogagaas inuu adeegsanayo hal qof qura. Dhowr isbuuc ka hor ayaa shirkadda Twitter waxay tirtirtay 100,000 koonto bog kuwaasoo wax kama jiraan ah. Bogagaasi iyo koontooyinkaas fara badan waxaa adeegsanaya qura dad yar oo hadda loo sameeyay magac ah cayayaanka baraha bulsho. Ujeedka cayayaanka baraha bulsho waxa weeyaan inay faafiyaan warar aan dhab ahayn iyo inay dadka ku dhex abuuraan cabsi iyo walwal iyo kala fogaansho aragti. waxaad ku arkaysaa mararka qaar baraha bulsho cayayaanka baraha bulsho oo ku xiran dad caan ah. warka ay soo tabiyeen dadka caanka ah ay ka qaadanayaan war ka mid ah kii ayay leexinayaan waxay ku sii darsanayaan aragtidooda gaarka ah kadibna waxay ku dhex faafinayaan dadka xiran baraha bulsho. Tusaalahan haddaad eegto YouTube waxaad arkaysaa dad badan oo ka qaylinayo oo warar iyo kutirakuteen ku dhex faafinaya YouTube-ka. dadka qaar YouTube-kooda wuxuu ku tusinayaa inay raacaan ay ku xiran yihiin 500,000 oo qof balse fiidiyowada ama muuqaalada la soo dhigo waxaa daawata qura 100,000 dhawaad 400,000 oo ka mid ah dadka ku xiran page-kaasi waxay u badan tahay inay yihiin bug wax kama jiraan. sidoo kale Facebook waxaad ku arkaysaa faalooyin laga bixinayo warar ama hadallo ama sawiro hoostooda. ereyada la adeegsanaya waxaad arkaysaa ereyada qaar inay soo noqonayaan sidoo sawiro iyo magacyo kala duwan ay adeegsanayaan weedho isku mid ah. cayayaankaas baraha bulsho ku dhex faafsan ayaa saameynaya aragtida guud ee dadka ay aaminsan yihiin. inta badan kuwa hogaamiya kutirkuteenta iyo wararka aan waxba ka jirin iyo aragtida leexsan inay yihiin cayayaanka baraha bulsho. kuwa caanka hadday hadlaan oo aragtideeda soo gudbistaan sidaasoo wax lagu daray oo la leexiyay waxaa hogaaminayo cayayaanka baraha bulsho. inkastoo qofka inuu caan noqdo ay ku xiran tahay inuu ka tanaasulo aragtidiisa qiimaha badan iyo sharaftiisa iyo karaamadiisa isagoo fadeexaynaya ehelkiisa iyo dadnimadiisa u noqdo caan. markuu caan noqdo wuxuu soo gudbinayaa barnaamijyo aan dadka wax u taraynin bulshada anfacaynin. wuxuu doonayaa kaliya dadka inuu ka qosolsiiyo si aysan ugu kala cararin waddankiisa uu kaga baahan yahay gargaar iyo kaalmeyn iyo aragtidiisa wanaagsan inuu gudbiyo. cayayaanka baraha bulsho markay ogaadeen goobta inay u bannaan tahay ay wax allaala waxay jecel yihiin soo dhexgeliyeen bulshada. haddii inta badan kuwa caan ku ah baraha bulsho ay u adeegsan lahaayeen koontadooda ama bogagooda dhanka wanaagsan ay dadka baraarujin lahaayeen u soo gudbin lahaayeen barnaamijyo fiican oo wanaagsan oo dadka wax u tarayo waxaa yaraan lahayd saamaynta cayayaanka baraha bulsho ay dadka ku leeyihiin. hataa laguma arkeen baraha bulsho ku soo caanbaxay caay iyo aflagaado dibna aragtidiisa hooseysa dadka kusoo dhex tuuraya. cayayaanka baraha bulsho wuxuu u baahan yahay in la buufiyo waxaana buufin karo dadka caanku ah inay u adeegsadaan beejajkooda dhanka wanaagsan. maalin wanaagsan. Salaamun calaykum.